waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da waana qayb shanaad oo ka mid ah murtida iyo maahmaahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso. dhegaystayaal, waxaa la yidhi dhurwaabaa goor fiid horaada wuxuu soo dul joogsaday qayro aad u dhaqan oo geel lo' iyo ariba ay xero waliba u buuxdo. wuxuuse ka yaabay bulaanka reeraha ka baxaya iyo dhallinyarada faraha badan ee xoolaha ku dhex jirta. intii cabbaara ayuu wax ilbaada ka waayey. markaas ayuu istusay iyada oo arrini ay sidaa tahay haddii uu neef kala tago in markiiba laga ridan doono, cayrana dhabarka loo saari doono. isaga oo ay tala ku wansixsan tahay ayaa reerkii uu dul joogay waxaa u soo wareegtay haweenay baadidoona oo riyo maanta ka goosmay raadinaysa. haddiiba tii reerka lahayd ayaa u baytisay oo ku tidhi, sumadda aad sheegtay arigale ee xaynta ah goor aan fogayn waxaan ku soo maray balli hebel geedaha raydabta ah ee ku dhow. dhurwaagii oo labada dumara sheekadooda dhegta u dhigaayey ayaa isgundhiyeyoo ciddi isku jabiyey. farax buu ishayn waayey. markaas buu go'aan gaaray. reerkan uu raggu ka buuxo intii uu neef laga dhigto isku biimayn lahaa, maxaa u diidaya raydabta la sheegay isba wuu yaqaane xayntaas baylahda ah inuu u degdego oo haweenayda iska leh uu uga hormaro. waa waxba. dhurwaagii orod buu istaabtay. xagga iyo xagga isaga oo aan eegayn ayuu halkii ay dumarku isu tilmaamayeen durbadiiba isa sii taagay. geedihii raydabta ahaa ayuu midba mar hoos joogsadaa. afarta garjaho ayuu kolba mid jeedaaliyaa. markay waxba u muuqan waayaanna dhulka ayuu isbilqaa. dhagaha ayuu raaricinayaa bal inuu riyihii la sheegayay cidooda maqlo. kolkii dambe ayuu ka shakiyey geedihii ay haweenaydu haweenaydii kale u sheegtay inay kuwan yihiin iyo in kale. markaas buu daymo horle ugu noqday. agagaarkooda ayuu eegay. mase xabagtii ka daadatay waxaan ahayni uma ogog lahaa, kamana agdhowa. ugu dambaystii markay u caddaatay hilib iyo isagu inay caawa isa seegeen ayuu dhab u calaacalay. kol isagii baa ishaaraamay, kolna geedihii raydabta ahaa buu haaraamay, kol saddexaadna haweenaydii xaynta ku baytisay ayuu haaraamay. markaas buu yidhi, yaabaye amankaagayoo ashqaraaraye, ma anaan roorayn, mase raydabtaan raydabtii ahayn, mase rimagu ka soo dhacdii baan run sheegayn. dabadeedna waxay noqotay hawraar uu ku maahmaaho qof dan uu lahaa aad ugu daalay, hase ahaatee ay waxba uga hirgeli waayeen. inkastoo waruu islahaa waa biyo kama dhibcaan uu markiisii hore isku halleeyey kuna howlgalay. sidaynu ognahay ragga soomaalidu haweenkooda way xifaaleeyaan. haweenkii qudhooduna shib ma aha oo dhaliilaha ay ragga u hayaani ma tira yara. taas si aad u ogaatana waxaa kugu filan inaad dib ugu noqoto heesaha godadlaha iyo qorqodaha ku saabsan ee ay haweenku isu jiibin jireen waayadii hore ee iyaga oo laba kaloodinaya ay qoysaskooda badarka u tumi jireen. waxyaalaha haddaba ay raggu dumarka ku xifaaleeyaan waxaa ka mid ah inaanay ka samri karin wax ay waa hore bixiyeen ama laga qaatay ama iyaga oo aan raalli ka ahayn si uun gacantooda uga baxay kuna dhaafay. guyaal badaniba ha ka soo wareegeene waxay rag badani qabaan mar walba waxyaabaha sidaa u dhaca gucashadoodu inaysan dumarka ka dhammaan. sida la sheego goor kasta way xusuusan yihiin, dadka kalena way xusuusiyaan. raggii hore ee soomaaliyeedna waxay odhan jireen inanta la soo aroosaa haddii ay reerka dheri la soo gasho waa laga jabiyaa, maxaa yeelay ilaa maalinta ay habrowdo oo ay ayeeyo noqoto dherigayga ayuunbay haynaysaa. fikraddaas iyada ah in raggu qabaa la yaab ma laha. waxaase la yaab leh dhurwaaguna inuu qabo, sida sheekadan soo socotaa ay ina barayso.
waxaa la yidhi dhurwaabaa goor habeena wuxuu u soo hilbadoontay duddo ruuman doogle intay degtay ku baraadhay. habeenkaasna inta xoolihii maashay soo xeraysatayoo iska sheekaysanaysa. xeryaha xooluhu ku jiraan tii uu u dhici lahaa intii aanu go'aansan ayaa dhurwaagii wuxuu dhegta u dhigay haweenay tu kale u sheekaynaysa oo ka calaacalaysa 2 gu ka hor ida uu isaga qudhiisu ka laayay. markaas buu isaga tegayoo qoys kale oo isduddada ah u cibil galay. sheekadii dadka ayuu dhegaystay. mase waa haweenay kale oo iyaduna habaar ku daldaraysa dhurwaa beri ka candhagooyey sac madi ah oo ay jeclayd. taasina waxay ahayd dhacdo 4 gu ka hor ku sinnayd. dhurwaaga ay habaaraysaana waa isla isaga. afar qoys oo kale ayuu midba mar isdul taagay. ku walbana wuxuu ugu tegey dumar isu tanaagoonaya oo neefaf uu waa hore ka cunay dartood hiif iyo habaarba u dhaandhaaminaya. markaas buu goostay ilaah baa wax siiyee diihaalba ha qabee duddadan iyo dumaradeeda gocashada badan inuu isaga tago wuuna ka dhabeeyey. ha yeeshee markii uu goobtaa ka jiciiranayay ayuu naftiisa waxa uu ku quusiyey hawraar uu habeenkaa reebay. waayadii dambana mahmaah laga dhigtay. wuxuu yidhi xoolo dumar haddii aan xoolaha ka aqaan ma cuneen. taasoo ay ragga soomaalidu haweenkooda ku xifaaleeyaan amaba ay xusuustaan mar walba oo lexajeclada xaawalayda ay sheekadu joogto. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.